kiisa garaaca wadnihiisa uu fiican yahay marka runtii waxaan dhihi karaa horumar fiican oo ay xiriir kubadda cagta ku talabsadeen way diyasha صح way Salim runtii horta geedkan runtii waxa u maleysaa anigu hadda geedkan aan haysan oo macnaha refereelkina Soomaaliyeed ayagoo markay aadayeen siibasa ogtahay koobkan bariga bartamaha Afrika hadday noqoto hataa nation ama dalka dal ay noqoto finaal ahaan ciyaartooyda wax lagu furo waxay ahaan jireen Soomaali ama finaalka ayaga xiri jiray haddana markay noqoto club ahaan markay noqotana Soomaalida la geey jiray waa dad oo macnaha fitnesska caadi u ah tanna waxay noqonayaan horumar aad u fiican oo si dhiirigelinayso in macnaha wixii horumarka Soomaaliya ciyaaraha daawadayaal wili anagoo wili ku sii jarna ciyaaraha runtii Soomaaliya ayaa haatan waxaa la soo bandhigay isreebka ciyaaraha bariga bartamaha qaaradda Afrika ciyaarahani waa ciyaaro aad runtii aad ugu wanaagsan in kooxaha lagu ogaado ciyaartooda kooxaha tan iska soo horjeeda waxa ay noqonayaan wadamada Tanzania Uganda ku aadan Kenya waxa ay ku aadan yihiin wadanka Burundi South Sudan waxa ay ku aadan yihiin wadanka Uganda iyo Soomaaliya oo ku aadan Rwanda runtii ciyaarahani waxa Soomaaliya ciyaartiisa hadaan si gaar ah u eegno waxa ay ku dheeli doonaan magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti maadaama ilaa ay haatan aan jeclahay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika iyo kan caalamka safety reason inaanan loo ogoleen inay ku ciyaaraan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay keentay in lagu dheelo wadanka walaalaha nahay ee Djibouti isla markaasina xulka Soomaaliya ay ku adag tahay weedarka aadka u kulul ee ay markaasi leeyihiin walaalaha Djibouti waa magaalada Djibouti aad ay u adag tahay taasina waxa ay keentay inta badan in kooxaheena hadaysan waqti dheer la siinin oo ay tababar ku sameeyaan Djibouti inay ku adkaan doonto ciyaaraha waxay Soomaaliya Rwanda waxa ay ku baxayaan 26 July ciyaarta ugu horeysa Djibouti ayaa lagu ciyaari doonaa soo noqoshada waxa lagu dheeli doonaa magaala madaxda wadanka Rwanda ee Kigali 2 bisha August sanadkan 2019 asxaabay waa sida aad markaas u jeedaan ciyaaraha Soomaaliya isbedel aad u wanaagsan ayaa ka muuqda refereeyadii tababar ay haatan ay bilaabeen si markaas loogu diyaariyo in ay noqdaan refereeyaasha caalamka ciyaaraha u qabta sida aad la socotaan ciyaarihii ugu dambeeyay ee qaaradda Afrika refereeyada qabto waxay ahaayeen refereey Soomaaliyeed runtii waa wax runtii lagu farxo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya isbedel weyn ayuu wadanka ka sameeyay siiba laacibiinta la iibsanayo waxa ayna keeneen tababaro cusub oo u dhashay wadanka Ghana oo lagu magacaabo Bashir Hadford runtii dad badan baa waxay isweydiinayaan muxuu ku soo kordhin karaa xulka qaranka ee Soomaaliya Master Bashir oo u dhashay Ghana su'aashaasi hal ii dejiyo waxaan rabaa inaan siiyo diyeshe ka waran Bashir Hadford والله horta Salim magacaabis la magacaabay macalinkan ay u dhashay dalka Ghana u dhashay dad badan oo aad u tiro badan oo Soomaali ah ayaa qoraal badan ii soo qoray oo ka soo horjeeda magacaabista oo macnaha macalinkan loo magacaabay ayagoo dhahaya ma la waayay macallimiin oo Soomaali ah runtii Soomaalida shahaadadan way wada haystaan laakiin ilaa hadda ma arkaysid hatta ayagoo ku shaqo tagayo oo local team macnaha xaafadda ay degiin hataa tiimanka ka dhisan ayagoo macalinka ama arkaysid teeda kale macallimiin badan oo Soomaali ah hataa waxaa loo ogoleen in ciyaarihii Somali Week inay macalinka noqdaan هذا أرد عيارها سومالي ويك أو يوروب كذا عكها يوروب كذا عايو هذا أرد معلمين أجنبية هستان حتى ما يسمى معلمين صومالي سبب مرجع معلمين تي صومالي ذاك واحد هو صومالي ويك يوروبي يحبوه واين مرجع هذا خرج كوجا أمريكا مرجع وحين غني مرجع إن عندنا الله فيريو استيب كل نهار الله صعود الله راديو معلن وأرجع ماله كل معلن كان ومعلن أخون له وحبنا نشكر لك رسالة أمي سنة